حدين بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سند جورده كنتني تدبعت أساس كعيدك حوك دلك الصومالية مناسبة لوجود بالدجايو أي وحى هل كان كسر دوين يا ضمان مدح الصومالية وهريو مدحوينها جمهورية فدرال كصومالية رئيس وزراء الدولة فدرال كصومالية رئيس وزراء كحجان ك تلياش عيد مدى لبدا قوله أقل كسرية أقل كهوسة قولها وزير ذا عيد ماذا قلب كسيدة أردن مرتي شرفت كسر قيب قشي أصحابته أما صاحبها أما ولا لها الدنيا ذا نوقت تمد أو صاحبها كلها هاي عيد كحوق تلك الصومالية ستوسة الحرير كليهين وعن إذن الله أمرك ورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سند جورة ونكسن كنتني تدبر جورة دي أساس كعيد كحوق تلك الصومالية. برنامج كان وحي سوق جرا مناسبة كنتني تدبر جورد كأساس كعيدة كحوق دلك الصوماليات برنامج وعي قلنا أو إنه هيان كوحدة هرسات حوق دلك الصوماليات إذا أتوروس حركتين كوحدة بامبي عيدة كحوق دلك الصوماليات وحد ديار واه مدن مدحوين الرئيس وزراء كحجان قولها وزير قولها أقل كهوسي أقل كسر أنت هرسات أو ديار إنه صوبان دجان وعي قلنتي يقول تلقلين لبيت طبعا كأبريل أوها مناسبة أدوين أو صوماليا ما هو بيجودان كده بلدجايان وحن لنا يقول سنة كان سنة كيسة إلهي نبتها ينقو جارسيو آمين آمين آمين. بعدما إنه هاي أمة مسلمة برنامج كانوا وحن كده فرنانا آياتها القرآن الكريم وحن إنه آخرنا حدق عبد الفتاح عبد الله علي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله inagu anfaco aayadaha qur-aanka kariimka ah. waxaanu leenahay markana waxaanu leenahay mar labaad sanad guuro wacan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan xaasaskoodii iyo caruurtoodii iyo ayagaba anoo ku hadlaya magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay sanad guuro wacan. waxaan soo dhaweynayaa kooxda horseed oo udbahoodii dhigaheeda wato iyadoo maanta ay xafladda munaasabad ballaaran ay inoo tahay sida ay uga soo qayb galeen meediyihii afka Soomaaliya ku hadlayay kuwa internationalka intaba waa diyaar haddii ahalaya wakaaladaha tiifiyada raadiyoga wargeysyada dhammaan waxaan leenahay sanad guuro wanaagsan. kooxda horseed inta aanu albaabka uga furin heesta waxaan siinayaa saaxiibkay Axmed Saciid oo laba kelmad soo jeedin doona. bismillaahi raxmaani raxiim. mudane madaxweyne mudane ra'iisul wasaare mudanayaasha qaranka Soomaaliyeedow heer qaran heer gobol heer degmo heer tuulo iyo heer daabiyadeed intay doonaanba ha ahaadee waxaanu ku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan isu soo taagay barnaamijku waa furan yahay waxa weeye kooxda horseed ee fanaaniinta qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed waxa looga bartay wadaniyad sheekooyin iyo qosol maadaama abaara dhaceen dadkeennina uu silicsan yahay waxaan u joojinay waxa loo yaqaano sheeko heesa wadaniyaan ka dhignay taas waxaan u yeelay sheekadu waxay leedahay qosol waxay leedahay farax maanta noo farax inkastoo dawladdeena sharaftali ay dadaashay shacabka Soomaaliyeed dadaalay oo dadkii loo gurmaday haddana xoogaa waanu yaraynay heesa wadaniyo miran aya madaxweyne wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kooxda horseed oo isku duuban markana
السلام عليكم. أبريل أرقاقو إنه أبشر ويا إنتاذن إمان عليس استعماري أفضوب نقوها يستي دمان أفريكانكا وقيستي قبوطفل دمان أفريكانكا وقيستي قبوطفل أود عليسايا أغون إيا مامل إسآم اللوايي حرير يا إسكاشي إسآم اللوايي حرير يا إسكاشي intaan laba gaarin in la iska adkaado isdhiib afrikaanki intaan laba gaarin in la iska adkaado isdhiib afrikaanki intuu isu keenay sidii arigii xerooyin u ooday albaab adag saaray in la isdhex maraaye khiyaar la adeegto akhbaar la wadaago u diida dhaqdhaqaaqi ehel isu muuqda isu tegi waaye ikhyaar kululaatay Soomaali ahayd ayaa isla qaatay inay u dulqaadan dhibkaan isticmaarka oo ay ka gadoodo isgaabi wariyaa anaad ixambaari ambus afkaaga xir waa dhaqan isticmaar abaabul bilaabo dadkoodii u sheegay inaan la dulaysan bataatanba inaan la dulaysan oo ay iska diidaan adeegsiga xooga annaan laga maarmin midow in la yeesho si looga adkaado addoonsiga diida inuu ka hor leexdo dadkii u riyaaqe ikhyaarta warkeedii intii wax dishaaya dhammaan agab ciidan ablayda afayste fallaar iyo eebo iyagoo u jidbaysan abni iyo dawlad ilaalin dantooda afkay ku hadlaaya afka iyo diinta inaan dhaqan gaara shisheeye u yeerin ayagoo u jidbaysan inaan dhaqan gaara shisheeye u yeerin afkaarta gumaysta inay ka fushaana ka doorbiday iilki dagaal u jahayste intuu ku sugnaana aroor ku bilaabay risaas ololeys ilaahay amarkiis
durbay ka adkaadeen astaan qarameed asalkeeda la aasiye iftiin la dareemo dalkeenna ekeeye inaan nahay dowlad iskeed u adeegan Itaaliya awood leh ilaashan dhulkeeda dhammaan irdihiisa adduunka u sheegna abriil cidma mooga inaad tahay waalid barbaarsha intaane nasiibya ayaan le ammaan u sugnaatay inaan ku ilowno abaalki ku dheelno intuu jiro xooggu is-aamin shaqeeyo abid ha ka yaabin abid ha ka yaabin ujeeddadii dhaarta dardaaran ujeeddadii dhaarta axdina horyiilay ujeeddadii dhaarta axdina horyiil ahay ummadiinna sidaan u adeega dardaaran aad dhiibta midkaan ma ilaawin ilaa 60kii iminka aan joogna arooryadii dhaarta midkaan uma seexan tartiib aqalkiisa innagoo isku duuban akhlaaq leh asluub leh dhammaan ulyadiira amar kala qaadan ayaanu ordaynoo abeese u jiiri inaan arligeenna naftood ahligyaasha adduun ku cadaaban inaan arligeenna naftood ahligyaasha adduun ku cadaaban inkaartu shidayso ilaahi abuurta diideen amarkiisa udgoonow rasuulki islaam iyo gaalo inay u isxaamin islaam iyo gaalo u soo tafaxayto ibliis dhaqankii leh ugaadha sideedii hawdkiis ku ilaalin aan waalid oqoonin aabbe iyo hooyo abti iyo aayo adeer iyo eedo albaabka u taaganoo naftooda u qoonsan ilceelna ka owday haraad iyo oonyo abaar u horseeday inaan dilayaashu dalkeenna imaane addoonsan dadkeenna ayay ciidankeennu kitaab u mareen oy u taagan yihiin aroor alla keeno xasuusta abriilya arrimaha ciidan haddii aan ku koobo intaasee istaajo u baaqa dadkayga aragtida gaaban bulshooy idin reebtay aragtida gaaban bulshooy idin reebtay adoon garanaynin xaqaad eryanayso intaad isdilaysa adduunku dhaqaaqyay daruuraha aadiye aqoonyo dhaqaale awoodda mideeye dhammaan isbahaysay iskaashata xoog leh albaab qura yeeshay iskaashata xoog leh albaab qura yeeshay balaayo afuufka dhib kuu ololeeya balaayo afuufka dhib kuu ololeeya abaabul qabiilya kacay aan ka daalin xigaal isnacsiiya igaar isku laaya xanuun aan ku haynin wuxuu la ordaaya bulshooy iska diida war afkiisa uraaya hoy iska riixa colaadu uf weeye colaadu uf weeye oo allah ka carooda ehel islahayaa is-aamini waaya nin door aan la quurin ayaa ku dhintoo dhulkan lagu aasi agoon in la oonsho ayay dhaxashaaye qabyaalad urkeeda afkiina ka dhowra oo yaan la adeegsan qabyaalad urkeeda afkiina ka dhowra allaan idinku dhaarshay dad uur wada seexday oori iyo ninkeed owlaad korsanaya ayay kala geysay abaar iyo colaad iyo ammaan darro baahda ayay dhalisaahay qabyaalad urkeeda afkiina ka dhowra oo yaan la adeegsan irmaan aan guraynin allah idin siiye sinaasho u maala dadyowga adduunku inuu idin tuugic soo shaqo doona ayaan arkayaahe tartiib u adeegta inaan dhimanayno qiyaama la aadi su'aalo adayga jiraan imtixaanno ogaada dadkaygi ilaah u dhowaado istaakfirullaystoo iimaanku dadaala tuma walxaata deelkuu taal tuman kaaleetoo layska diid tuma walxaata deelkuu taal tuman kaaleetoo layska diid waxaase ka horreeya dadkan horseeda daalaano lama damoonin
dhowr sano lama damoon dadkaan horseeda daalaano mideera kale ma doonan dallaacad qabiil derajadan badiil darsaaya ma doonan dallaacad qabiil derajadan badiil darsa mideera kale dacayla iibso oo ee ku dood duruufa beena layska diid dacayla iibso ee ku dood duruufa beena layska diid difaac ka qaado dheg duleel mid kale dayday layska diid difaac ka qaado dheg duleel mid kale dayday layska diid dadkaan abaartu dubataan docaysan layska diid dadkaan abaartu dubataan docaysan layska diid mideera kale dulli shaqadi dayaca xuquuq u doodi layska diid dulli shaqadi dayaca xuquuq u doodi layska diid mideera kale danguud iyo dangaarahan ana isku darsan layska diid danguud iyo dangaar hantidii dowladde diyaarad raacna layska diid damsii hantidii dowladde diyaarad raacna layska diid degmo hogaami afardow degmo hogaami afardow shan dabaq dhisoo layska diid degmo hogaami afardow shan dabaq dhisoo layska diid degmo hogaami afardow aad ayuu mahadsan yahay aad ayuu mahadsan yahay qabobe oo khiirad weyn ay qaaday sida aan filayo waxaan rajaynayaa inay gabaygiisii taariikh fiican uu taabanayay kooxda horseed ayaa inoo soo wada hees saddexda ciidan la yidhaahdo magaceeda horseed iyo heestoodii oo u diyaarsan caawa maanta horseed waxaan filayaa in aad garanaysaan maanta iyo waxa ay ku saabsan tahay waa 7 guuradii aas-aaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 2017 ma garateen si fiican waa maatantii maanta waaba kala daran yihiinba waxaan islahayn ciidanka lugta ugu qurux badanay kuwii cirka iyo baddaaba ka daranba ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والقروح بدنا وقبلينا ويسعدان الله محو عيدا كي قامري هذا يعزك هذا يعزك سودي هذا ما دام اي تاهي ما انت سنة قرودي كنت تضبط لبي توكا ابريل waxaan rabaa maadaama aan maanta garab haysto ciidankii badda ciidankii cirka anigoo ah ciidankii dhulka waxaan rabaa inaa waxa yar iga dhigis waa maasantiin laakiin taliyaha ayaa noo imaanaya asaga ayaa naga dhagaysanaya wixii aan ku oran lahayn okay ماشي بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وعيد حوق ذلك الصوماليات وأستان أولي هاي ربيعي 8 أبريل inaanu gargaar u fidino dadka liita oo hadafka xooga dalka oo ku shaqeynayaan waan mahadsantii aaway sarkaalkii lahaa tusaalahaynaa taliya waad mahadsan tahay
saddexda ciidan ayaa meeshaan diyaar kuga ah waxaan rabnaa inaan maanta meesha aan xafladda aan ka qayb qaadano nin kasta qaybta uu ka taagan yahay inuu muujiyo وحاني قبودة وذا
waxbaa ka dhacay nin walba farkaaga iyo baylaha kaa noqon aad ay umaasiin kooxda horseed oo inoo muujiyey ciidanka xoogga dalka astaantiisa gaarka ah waxaa markana inoo ah marti fanaaniin ka soo qayb gashay munaasabadda shamse cali macalin abwaanada oo inoo qaadi doonta hees la yidhaahdo xooggii dalkaan ahay xooggii dalkaan ahay iyo shamse cali macalin shamse cali macalin waxay ka mid ahaa jirtay kooxdii hore ee horseed horseed ayay ahayd welina way tahay oo waxay leedahay kooxdii hore horseed ayaan ka mid ahay shamsi ku soo dhawow
aad ayay umahadsantahay Shamsi Cali Macallin oo barnaamijkii munaasabadda 57 guuradii ayaan bartan kaga jirnaa waxaana markana mikrofoon ku soo dhaweynayaa fanaan marti ah oo reer Jabuuti ah Farxaan Xidig oo inoogu luuqayn doono hees 60kii la qaaday maantay curato mataana dhashe aan maalno hasheen maandeeq Farxaan Xidig
waa tahay horseed way dhalatay kadibna waxaa jiro in codsi buuxa uu ka yimid mas-uuliyiinta qaranka gaar ahaan golaha wasiirada waa su'aal da'weyn ee dalka yaa iska leh way ku xijin doonaan way dhalatay markay qaadaan ayay ku xijin doonaan horseed waa su'aal da'weyn ee dalka
maqlaysaa way dhalaytateennii dhidibadan loo aasbalahay taasi waxay ahayd farxadda dhaaftay bay ahayd taasi way dhalatay teennii dhidibadan loo aas dadku iyo ciidamadii oo isku dhafani waxay ku farxeen dhalashada ay dhalatay dawladdii ay ummadda soomaaliyeed ku faraxday leeyahay okay waxa marka dawladdii haddii lagu farxay waa inaan la talinaa war maxaad tidhaahdeen dad weyne haddaynu la talinayno waxaanu leenahay iska jir dawladdeennay iska jir waa tahay waxay la tahay heestii dadkao dhan ay wada sugaayeen iska jir waa la qaada waxaa la sugayaa waa su-aal daaweyne saraakiil haye fanaaniintaan u daynaynaa kadib aa heesta su-aal daaweyne qaadi doona fanaaniinta ayaan siinaynaa markan
madaxweynaha ayaa codsigiis yahay heestan iska jir dowladdeenna in dib loogu soo celiyo mar labaad dad waan filayaa iska jir dowladdeenna inay tahay tilmaam buuxdo oo kooxda horseed ay tilmaamayaan qof walbaba iska jir dowladdeennaay iska jir dowladdeennaay macnaha isheeda waa furan tahay iska jir dowladdeennaay mudane madaxweyne mudanayaal heestan muusig markii lagu tumayo iyo markii lagu sheego waa kala nooc muhiimadda laga leeyahay waxa weeye dunida ummadda ku kala maqan iyo tan dalka joogta jacaylkay dowladdeeda jeclaatayay jid dheer baa kaa horreeyo jafliyo qodax baa dhex taalo juq weeyo lagama baxo oo rag baa horay ugu jabay iska jir waxaa ku jira qabyaaladii waa jareexo dadkay kaa jeedisaayoo midnimaday kala jirtaayoo jab iyo waa naasabeele iska jir waxaa ku jira erayada muhiimkaa musuqu waa jawrfal weyno dhaqaaluhu jebinayaayoo jeebkaa lagu wada gurtaayoo carruurtay jalinayaan iska jir kuwaa jira kula jiro haddana kaa sii jiro jirkana midabkaagaloo cadow kuu jebinaya iska jir kooxdii horseed taliya madaxweyne
سمية ونسوا واتهاي اسكجر دولتنا وانفريا إن خيرات بدن أبورتي نسخة كموضوع اسكجر دولتنا هذا وفريه وديار سنتها مانتا وديارو تاي كي وحقلدو إن لسوقبتو كي وحلوصدو إن لسوقبتو حتى هار مدحوينها وسوقعو خيرات دي سعيه جارتي شعور تكو جرتو جركي سعيا درنسية إنه تاي هستن مثل ما مقارا ولا دولة الصومالية يصعبك الصومالية kooxda horseed ayaa u diyaar ah inay sidaas ugu soo bandhigaan wacyigelinta mar walba loogu talagalay dowladda iyo shacabka isku xilkooda kooxo way badan yihiin balse kooxda horseed dhinaca ciidanka xoogga dalka ayay diyaar u yihiin waxaa diyaar ah horseed oo rabaa u diyaar ah inay ciyaar hidde iyo dhaqan qac ka siiyaan xoogaa waa la cajisalay fadhiga waa lagu daalay wax yaraan ciyaar qac ka siino heestii waa su-aal daaweyne dalka yaa iskalena way ku xigtaa haddii allah wadal raalli ka noqo